kulanti wacan oo wanaagsan daawada muuqaalkan waxaan kugu la wadaagayaa warbixin guud ahaan ku saabsan guuldaradii Manchester City ee finalka FA Cup-ka iyo hadaladii Pep Guardiola uu ka yiri guuldaradaasi balse marka hore waxa ka codsanaya laagsan muuqaalkan sina share kare haddii aad igu cusub tahay inay igu soo biir oo follow barayga bulshada sida Facebook, TikTok iyo YouTube mahadsanid garoonka Wembley ee dhaca waqooyiga galbeedka London ee dalka Ingiriiska ayaa waxa xalay lagu soo gabagabeeyay finalka tartanka FA Cup-ka waxaana finalkiisa xalay wada kooxda todobada jeer ku guuleysatay tartankan ee Manchester City iyo kooxda aan weligeed ku guuleysan tartanka ee Crystal Palace. Manchester City ayaana guuldaro gooli waxba waxay kala kulantay kooxda Crystal Palace iyadoona meesha ku weyday koobkeedii sideedaad si ay ula mid noqoto kooxaha Chelsea, Liverpool iyo Tottenham Hotspur oo sideed jeer ku guuleystay tartanka faca weyn ee FA Cup-ka. Tababare Pep Guardiola ayaa sheegay inuusan ka qoomameyneynin guuldaradii kooxdiisa xalay toole ka soo gaartay Crystal Palace oo ka qaatay tartanka FA Cup-ka. Crystal Palace ayaana ku adkaatay gooli waxba iyadoo goolka guusha ay ka heshay laacibkeeda Ibrahim Isse daqiiqadii 16aad taasoo u horseetay inay ku guuleystaan koobkoodii ugu horeeyay taariikhda abid. City ayaa haysatay fursad badan oo ay kaga soo bareejeyn kartay goolkaasi iyadoo Umar Marmuush uu khasaariyay rigoore qaybtii hore ee ciyaarta kooxdu ay heshay waxaana wacdara dhigay golayaha kooxda Crystal Palace Dean Henderson kaasi oo badbaadiyay fursado dhowr ah oo ay heleen xidigaha Erling Haaland, Josko Gvardiol iyo sidoo kale tayarka reer Argentine ee Claudio Echeverri oo bedel ku soo galay kulankii xalay. City ayaa u qalantay inay ku guuleysato koobkan laakiin way ku fashilmeen. Manchester City waxa ay kubadda haysteen 76.7% waana kooxda ugu badan ee FA Cup final sidaasi koox uga haysata kubadda. Ruben Dias ayaa sameeyay baasas ka badan intii ay sameeyeen dhammaan ciyaartoyda kooxda Crystal Palace. Ruben Dias ayaana waxa uu sameeyay 129 baas halka dhammaan xidigaha kooxda kubadda cagta Crystal Palace ay sameeyeen isku dar 126 baas. Dhamaadkii ciyaarta golaha Dean Henderson golayaha Crystal Palace iyo tababare Pep Guardiola ayaa ku murmay daahida Henderson ee dib u bilaabida kubadda. Guardiola ayaana u arkay inuu waqtiga luminayay golayaha kooxdan isagoona arinkaasi si weyn uga carooday. Pep Guardiola ayaa ciyaarta kadib yiri anaga waqtiga ma lumino waxaan doonaynaa in ciyaarta si cadaalad ah loo daawado laakiin waxa ay sameeyeen Crystal Palace wax ka badbadis ah. Waxa uu intaas ku daray Guardiola waxa uu qiray in City aysan guuldareysan sababtoo ah waqtiga la lumiyay awgeed balse ay sabab u tahay inaysan gool dhalin guuldaradeeda. City waxay sidoo kale ku guuldareysatay finalka FA Cup-ka sanadkii labaad oo xiriir ah. Sanadkii horena waxaa tartankan ka qaatay kooxda kubadda cagta Manchester United. Dhanka kale waxa ay dood badan ka taagan tahay kubaddii uu gacanta ku taabtay golaha Dean Henderson isagoo ku jira diilintiisa xerada ganaaxa balse waxay ciyaartoyda kooxda Manchester City iyo tababare Pep Guardiola ay aad ugu caroodeen in xalay Dean Henderson uu ahaa roose toos ah maadaama uu gacanta kala soo baxay diilinta ganaaxa isla markaana kubaddaasi uu kaga badbaadiyay Erling Haaland. Ciyaartoyda Manchester City ayaana aad uga carooday falkii uu xalay sameeyay karsoorihii kulankaasi dhexdhexaadinayay oo ay ku sheegeen in uu Crystal Palace uu la jiray isla markaana ay ahayd inuu ciyaarta ka saaro golaha Dean Henderson. Dhinaca kale kii hore Manchester United Wayne Rooney ayaa isagu waxa uu la mid noqday jamaahiirta iyo ciyaartoyda kooxda Manchester City waxaana uu soo jeediyay talaha in golaha Dean Henderson xalay uu qalmay in kabi ahaanba ciyaartaas laga saaro marka loo eego qaladkii uu sameeyay isla markaana isagoo xeradiisa ganaaxa ku jira gacanta kubadda kaga bixiyay ciyaartoyda Erling Haaland balse garsooraha ayaan waxba ka soo qaaday arinkaasi iyadoo wali doodaas ay jirta haddana wali xiriirka kubadda cagta FA-ga wax war ah meesha ka soo saarin qalad ay ka tacoonayaan ciyaartoyda kooxda kubadda cagta Manchester City. Si kastaba noqotee tababare Pep Guardiola wuxuu sheegay inuu ku qanacsan yahay sida kooxdiisu ay u ciyaartay marka loo eego sanadkii hore oo ay koobka ay ka qaatay kooxda kubadda cagta Manchester United. Haddaba daawadayaal ahaan sidoo aragtaa hadalka Pep Guardiola sidoo kale Manchester City ma ku dhameysan kartaa shanta kooxood ee ugu sareysa horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League xilciyaareedkan si ay uga soo qayb gasho tartanka UEFA Champions League xilciyaareedka soo socda. Aragtadu waxay tahay qaybta hoose comment-iga